kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 jeer idiin soo gudbinno. qaybta 32 ee barnaamijka hayaan waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa dadaalada wacyigelinta ah ee ka dhanka ah xagjirnimada iyo dadaalada ay wadaan dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee wax looga qabanayo halista kooxaha xagjirka ah. Tan iyo markii ay bilowdeen dagaaladii ugu dambeeyay ee looga xoreynayo dalka Al-Shabaab, waxaa socday dadaalo wacyigelineed oo ay hormuud ka tahay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyadoo dadaaladaas ay qayb ka ahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada iyo odayaasha dhaqanka. Dhammaan culimada, indheergaradka iyo mas'uuliyiinta dowladda ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay in loo midoobo la dagaalanka xagjirnimada rabshadaha wadata. Wacyigelintan ayaa kaalin muhiim ah kaga jirta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale lagu muujinayo dhibaatada xagjirnimada iyo sida ay uga hor imaanayso mabaadi'da aasaasiga ah ee diinta Islaamka sida xurmada dhiigga bini'aadamka. Maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ah goobaha ugu muhiimsan oo ay ka socdaan dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sidoo kale laga hirgeliyay barnaamijyo wacyigelin ah. Waa hagaag dhegeystayaal, markana si aan wax badan uga ogaana arrimaha socda ee wacyigelinta dadweynaha ee ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah, waxaan wareysi la yeelanay Axmed Sheekh Nuur Maxamed oo ah agaasimaha hanuuninta iyo wacyigelinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Galmudug. Wuxuuna ugu horeyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan tallaabooyinka wacyigelinta ah ee ay qaadeen maamul ahaan si looga hortago xagjirnimada. tallaabooyinka aan qaadnay waxay noqon karaan in aan sameynay wacyigelin deegaanada iyo waqti meelaha badan oo laga xoreeyay khawaarijta inaan ka sameynay wacyigelin si bulshadu ay ugu dhiiradaan iska difaacidda iyo la dagaalka khawaarijta. aan uga sheekayno xilli kasta si isaga dhici lahaayeen khawaarijta una adeegsadaan si hab kasta oo fudud. Marka waxyaabaha aan qabana waxaa ka mid ah in aan tagno meelaha khawaarijta ee laga xoreeyay goob kasta sidii intii noo suurtagala, sida waxyaabahaas ka mid ah waxyaabahan qabana. Agaasima, maxay yihiin dhinacyada aad xoogga saartaan marka aad sameynaysaan wacyigelinta? Waxaan xoogga saarnaa markaan sameynayno wacyigelinta in awalan horta la dhiso bulshada moraalkeeda, gaar ahaan goobaha khawaarijta laga xoreeyay, in aan dadka deegaanka tusino in ay yihiin nimankaanu niman aad iyo aad u dhib badan kooxahan xagjirka ahu, moraalka iyo dadka ay moraalka ka dilaan, dadka aan moraalka u soo celino, oo ay yihiin niman dhib badan oo khawaarija oo diinta Islaamka iyo dalka iyo deegaankaba intuba Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga gargaaray. Dadkuna ay ogaadaan waxa ay heleen dowladnimada iyo wanaageedana ay soo dhoweeyaan. waxyaabahaas ayaa waxay yihiin waxyaaba ugu muhiimsan. waxyaabo badanaana ka qabano in deegaanada khawaarijta laga xoreeyay ama kooxahan xagjirka ah wax badan oo kamida ayaa ka qabsoomay, dadkuna aad iyo aad u soo dhoweeyeen. Qaabab nuucee ah ayaad adeegsataan marka aad dadweynaha ka wacyigelinaysaan halista khawaarijta iyo guud ahaan xagjirnimada? qaababkaan adeegsano way fara badan yihiin, laakiin waxaa ka mid ah miidiyahoo kale waan adeegsanaa, aad iyo aadan u adeegsanaa. waxyaabaha kaloo ka midka inaan adeegsano waxaa ka mid ah bulshadii in la kulmiyo, oo haddii markaa duruufta nala gasho bulshadii la isugu kulmiyo, gooba la isugu keeno, goobaha markaa lagu wacyigeliyo oo loo sheego farqiga u dhexeeya gumaysinimada ay ku hayaan deegaanada ay maamuli jireen kooxahan xagjirka ahu iyo dhibaatooyinka ay dadka marsiiyeen, inaan dadka laftirkooda aan dib u celino xusuustoodii xilligii adkaa ay soo mareen oo kooxdan gumaysanayday iyo halda cawda dowladnimada ay u baxeen. maadaama markaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku meelaha ay qabtaan aan tagno, farqi weyna qofka u soo baxaya ku noolaa jira goobahaas khawaarijtu ay haysan jirtay uusan qofku khiyaar lahayn, oo wuxuu haysta aan la arag oo khiyaar la arag, oo qofku uusan dantiisa shakhsiga iyo midda mujtamaca midna uusan khiyaar u lahayn. in aan marka hore tusno dadka inay leeyihiin khiyaar, bini'aadan xor ah ay yihiin. waxyaabaha markaan adeegsayna waxaa ka mid ah inaan bulshadii kulmino, u sheegno, ku wacyigelino in ay garab istaagaan dowladnimada iyo horumarka deegaanadooda soo wajahay.
waxyaabahaas markaan adeegsanayna miidiyada ka mida mujtamacii meelaha ay maxaafisho isugu yimaadaan baa ka mida waxyaabahaasaan adeegsanaa. muhiimad intee leeg ayay leedahay in shacabka iyo ciidamadu ay helaan faham ku saabsan kooxaha xagjirka ah sida khawaariijta al-shabaab? muhiimad aad iyo aad u ballaaran bay leedahay oo aad dareemi karta, qof kastaba uu dareemi karo. dadku haddii ay fahmaan muhiimadda ay leedahay waxay tahay in awalan diinta iyo dalka iyo dadkuba badbaadayaan. muhiimaddaasu markaa waxay tahay haddii dadkanu iyo shacabka iyo ciidamaduba ay si dhaba u fahmaan oo ay u fahmaan kooxdan dhibkooda iyo waxa ay yihiin, waxay fahmayaan dhibka haystaahu inuu yahay kooxdan diin iyo dal iyo dad midna aan nabadgelinayn. sababtu waxay tahay nimankan wax ugu horeeya oo ay dhibaatada ku hayaan waa diinta islaamka, sababtoo ah koox mooryaanahoo meel degta weeye. ayagoo koox mooryaanoo meel degtoo dhib badan ah ay haddana waxay adeegsanayaan magacii diinta islaamka. waxay leeyihiin ilaahay asaan la yiri, ilaahay asaas noo faray. marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay dadkii haddii la fahamsiiyo kooxdaas dhibka badan oo khawaarijta ah oo ay dadkii iyo mujtamaci ay fahmaan, muhiimad weyna waxay u leedahay xoreynta dalka dhan oo qaybta ugu weyna ku leedahay. maxaad nooga sheegi kartaa guulaha aad ilaa iyo hadda ka gaarteen wacyigelinta shacabka iyo ciidamada ee ku aadan halista kooxaha xagjirka ah? guuluhu waa aad iyo aad ay u ballaaran yihiin. waxaa ka mid a guulaha la gaaray goobaha la xoreeyey markii la tago oo dadkii la wacyigeliyo, waxaa ka imaanaya inay dadkaasu fahmaan oo ay fahmeen in wax badan oo ay ka maqnaayeen oo ay dowladnimadu neecaw tahay, nabadgelyadu inay neecaw tahay, dhibaato ay ku jireen, xuroobeen, wax badan oo ka mid ay heleen. marka guulo badana laga gaaro. guulaha waxaa ugu mid a in dad muslimahoo tiro badan oo dhibaataysnaa ay badbaadaan oo ay kooxahaas ka badbaadeen, in dadkaa la fahamsiiyo kuwooda aragtidoodii ay macquul tahay inay saameydo inaysan aragtidaasu sax ahayn, aragtida dowladnimada iyo midda ku dhisan nabadgelyada iyo silmiga ah oo ay tahay midda saxda ah. ugu dambeyn agaasime, kooxda khawaariijtu waxay badanaa adeegsataa aayado iyo axaadiis ay si qaldan ugu fasiraan dadka Soomaaliyeed. haddaba sidee beentaasi uga hortagtaan? waa sax waxyaabaha badan inay adeegsadaan oo ay aayaad iyo axaadiis dadka usoo daliilsadaan aan maxalkoodii iyo booskoodii midna joogin, laakiin maadaama ay dadka si qaldan wax ugu sheegaan, annaga waajibkana saarana wuxuu yahay inaan dadka sida saxda ah oo diinta islaamka ugu sheegno, ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu cadayno sidii uu xaqa u caddeeyey. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala liyuxiqa alxaqa wayubdila albaadila walow kariha almujrimuuna. xaqu waa sugnaanayaaho xaqnimadiisu u sugnaaha, baadilkuna waa burburayaaho inuu baadil yahu u burburaya walow kariha almujrimuuna. ilaahay yidhi kuwa mujrimiinta ah haba ka hadaane. marka waxaa la rabaa yacni waxyaabaha annagu aan qabanna waxaa ka mid a inaan u sheegnaba inay nimankaanu adeegsanayaan qaacidooyin ama aayaad iyo axaadiis iyo inay adeegsanayaan ay macnahoodii ay sida ayagu ay rabaan ay ku tadbiiqiyeen. marka annaga waxaan sheegnaa sida saxda oo ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkan ay ku fasireen culammadii mufasiriinta muxadisiinta intaba aan u sheegnaa inay nimankan waxa ay sheegayaan waxba ka jirina waan u caddaynaa. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Axmed Sheekh Nuur Maxamed oo ah agaasimaha hanuuninta iyo wacyigelinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Galmudug. welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Hayaan oo aan bishiiba 2 goor idiin soo gudbinno. hagaag dhegaystayaal, iminkana waxaad ku soo dhowaataan waraysi aan la yeelanay Cigaal Cabdulle Cilmi, gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. wuxuu ugu horreyn ka hadlayaa howlaha wacyigelinta ee ay fuliyaan si loola dagaalamo xagjirnimada iyo kaalinta dhalinyaradu ku leedahay. waxaan inta badan ugu qayb qaadanaa wacyigelinta dhanka dhalinyarada, haddii ay noqon lahayd inaan ugu gudbino fariimaha sida raadiyaha, FM-ka iyo social mediaha, waxyaabaha aadka loo isticmaalo sida warbaahinta aada ugu muhiimsan ay ugu horeyso idaacadaha. dhalinyar ahaan marka waxaan aada iyo aad talaabooyinka dhanka wacyigelinta ka dhanka al-shabaab, waxaan dhalinyarada inta badan aan ka wacyigelinaa in ay khatara tahay in al-shabaab ay ku biiraan, in ay la shaqeeyaan, in fikradaha xagjirnimada aadka u guraacan laga wacyigeliyo sidii micnihii ay dhalinyarada ay u noqon lahaayeen dhalinyaro maskaxiyan, aqoon ahaan, maskax ahaan dhan walba ka dhisan, ka wacyigelisan xagjirnimada, ka wacyigelisan
haddii ay noqon lahayd maran xawaabinta. marka dhalinyarada inta badan wacyigelinta waxaan ugu qayb qaadanaa baraha bulshada oo ay ugu horeyso idaacadaha FM-ka. maxay yihiin dhinacyada aad xoogga saartaan marka aad samaynaysaan wacyigelinta sideese bulshada iyo dhalinyaradu u arkaan fariimaha aad gudbinaysaan? inta badan waxaan xoogga saarnaa fariimaha haddii ay noqon lahayd fariimo isbuucii ama jimcihii ama bishiiba mar aan ugu gudbino idaacadaha si ay u dhageystaan bulshada qeybaheeda kala duwan, si ay u dhageystaan dadyowga ku nool deegaanada ay idaacadaha ka shaqeyso. fariimaha ayaan inta badan ugu gudbinaa. maxaad adeegsataan si aad dadweynaha u gaarsiisaan wacyigelinta halista khawaarijta iyo guud ahaan xagjirnimada? waxaan adeegsanaa sida aan dadka aan u wacyigelino sidaan hore kuugu sheegaybo inta badan fariimaha iyadoo lagala dagaalamayo qataraha ay leedahay xagjirnimadu, iyadoo lagala dagaalamayo fikradaha guracan ee khawaarijta ay ugu gudbinayaan dhanka warbaahinada, iyadoo lagala dagaalamayo wax kasta oo marin habaabin karo maskaxda fiyow ee dadka. inta badan halka ayaan ugu qayb qaadanaa fariimaha sida raadiyaha. maxay yihiin waxyaabaha aad adeegsataan si aad u garab istaagtaan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ee khawaarijta dagaalka kula jira? waxaan aad iyo aad u garab istaagnaa ciidamada qalabka sida marka ay la dagaalamayaan kooxaha nabadeedka ee khawaarijta ah. saa ogtahabo waxaan ku garab istaagnaa wacyigelin haddii ay noqon lahayd kii dhintan inuu yahay shahiid, kii dhinta inuu yahay shahiid oo jannatul firdaws oo galaya, kii dhaawacman oo ilaahay u bogsiinayo. sidoo kale marka goobta dagaalka lagula jirana waxaan geynaa nafteena annagoo ah shacabkii. sidoo kale deeq xoolo nool waan geersiinaa, raashinka ayaan geersiinaa, biyihii ayaan geersiinaa. wax walba oo garab istaag shacabka ay ugu baahan yihiin ciidamada qalabka sida ayaan ku garab istaagnaa marka ay la dagaalamayaan kooxaha khawaarijta ah. waxaan aad iyo aad u adeegsanaa social mediaha ay ugu horeyso idaacadaha FM-ka. waxaan aad iyo aad ku marti qaadnaa doodaha culimada Soomaaliyeed si ay u sheegaan fikradaha xagjirnimada, si ay u sheegaan kooxaha khawaarijta wax diinta islaamka qabto, si ay ciidamada qalabka sida u dhiirigeliyaan, si ay kii dhintana shahiid inuu yahay, kii noolna nolol raax uu ku noolaanayo. intaaba waxaan u adeegsanaa wacyigelin anagoo isticmaalayna idaacadaha oo aad loo isticmaalo. muhiimiyad intee la-eg ayay idiin leedahay in shacabka iyo ciidamadu ay helaan faham ku saabsan kooxaha xagjirka ah sida khawaarijta al-shabaab? waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u muhiimsan in lala dagaalamo kooxaha nabadeedka khawaarijta al-shabaab. sababtoo ah dalkan iyo deegaankan waxay aad iyo aad una qabateen aad u balaaran ku sameeyeen meel walba oo ay ayagay joogaan. waxaad ogtahay shacabkii inuusan helin caafimaad, shacabkii inuusan helin aqoon, shacabkii inuusan helaynin isdhexgal bulsho. that means marka inay yihiin kansar ummadda loo soo diray inay yihiin waa dareemi kartaa. ciidamada qalabka sidana faham xoogan ayay ka haystaan wacyigelinta khawaarijtana. waxaad ogtahay meelo badan oo lagula dagaalamo in looga guuleystay. marka mar walba waxaan leenahay waxaan garab u nahay ciidamada qalabka sida, mar walbana waxaan gaashaan u nahay ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka oo isgaashanayo. waxaad noo sheegtaa guulaha aad ilaa ay hadda ka gaarteen wacyigelinta shacabka iyo ciidamada ee ku aadan halista kooxaha xagjirka ah. waxaa laga gaaray guulo aad u waaweyn. waxaad ogtahay wacyigelinta iyadoo la isticmaalayo laguma dhiirin karin sanado ka hor in shabaab sidaan loola dagaalamo. hadda waxaad ogtahay meel walba shabaab in laga nacay, haddii ay noqon lahayd magaalooyinkii waaweynaa, haddii ay noqon lahayd dowlooyinka deegaanadii. waxaan ognahay aan usoo joognay meel shabaab wax looga sheegaya in micnihii lakala aamusayo. haddana waxaad dareemaysaa qofka ganacsiga ah ee qofka ciidanka ahba si wadajir inay shabaab ay u wada caynayaan, khawaarijta ay ula dagaalamayaan. intaa waxaa geersiiyey wacyigelinta faraha badan. intaa waxaa geersiiyey inay yihiin dad mujrimiin ah oo ummadan iyo islaamka dhibay inay yihiin, in dadka laga wacyigeliyey, la maqashiyey, dhagahooda lagu shubay. waxay sheegayeen diintii ay diin ahaan u sheeganayeen culimada Soomaaliyeed ay ka hadashay inaysan ahayn. waxay sheegayeen diin ay yihiin xagjirnimo gaalaysiin ah. marka waxaa ku dhiiraday dhammaan dadkii shacabka ahaa, dadkii deegaanka ahaa, ciidamada qalabka sida oo iskaashanaya. waxay ku dhiiradeen in shabaab ay yihiin mujrimiin dalkan iyo deegaanka loo soo diray. haddii aan laga guuleysanin dalkan iyo deegaankan dhibaato badan iyo cawaaqib badan ay ku reebayaan. waxaad ogtahay marka intaan guulahaas waxaa lagu gaaray wacyigelin, in dadka laga wacyigeliyo waxay ayaga yihiin. in culimada Soomaaliyeed ay ka wacyigeliso waxay sheeganayaan inaysan diin ahayn.
cigaal ugu dambeyn kooxaha khawaarijta waxay badanaa adeegsataa aayado iyo axaadiis ay si qaldan ugu fasirtaan dadka Soomaaliyeed. haddaba sidee beentaas uga hortagtaan? xadiiska iyo aayadaha qur-aanka ay adeegsadaan nimanka xagjirinta ah ayagoo tafsiirkii diinta islaamka si qaldan u turjumaya. waxaad ogtahay culamo Soomaaliyeed in dowladda Soomaaliya ay meel iskugu keentay ay dhahday fadwo ka soo saara diinta islaamka waxay ka qabta khawaarijtan arxanka daran. culamadiina ay fadwo ka soo saartay ay u sheegtay mujtamaca Soomaaliyeed inay yihiin niman murtadiin ah, inay yihiin niman ظالمين oo diinta islaamka aan raad ku lahayn. saa ogtahay marka culimada marka ay fadwada soo saaraysay waxay adeegsanayeen inta badan idaacadaha iyo aaladaha dadka lagu wacyigeliyo. marka mar walbo nimankan shabaab in laga guuleysanaya ayaan aaminsanahay insha Allah biidhnillaahi kariim haddii aan garab wada noqon. waa hagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cigaale Cabdulle Cilmi, gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. wareysigaas ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal barnaamijkeenii hayaan. tan iyo toddobaadka kale intaa dib u kulmeyna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.